sidaa daraaddeed ardaydu waa kala nuuc. midba waxbuu ku fiican yahay, mid kalena waxbuu ku xun yahay. marka shiikha hadda idiin sheegaya wuxuu iga sheekeeyey arrin cajiib ah oo ku dhacday oo ku qasabtay inuu ulna iska daayo ilmahana ka faa'iidaysto. wuxuu yidhi maalin baan arday yar oo igu cusba baan garaacay buuri oo iska yara xanaaqsanaa. marka wuxuu yidhi intuu soo jeestay wuxuu yidhi alaa tastaxyi miyaad xishoonayn. wuxuu yidhi carabi iyo soomaali soo hoydaraya alaa tastaxyi alaa tattaqi allah alla ka cabsamaysa miya. wixii marka waan naxay waa ugu baryey maxaa ii dish maxaa igu dish. wixii marka u jawaabay ugu soo ceshaa alaa tastaxyi ma xishoonaysa miya alaa tattaqi allah miya alla ka cabsanay. markaasaan wuxuu yidhi anta meel fadhiistaan fakeray waxaan ku dilana waa gara waayo markii ilmihii baa macallimiinta qaarkood haddii mid qalad galo ilmaha usha geeska la maraan waana cadaalad darro ayagoo dilku mamnuuc ba ahaa haddana inay mid dembi lahaa iyo midaan lahayn isu gees maraan. arrintaa waxay soo xusisay marka raximahullah sheekh Cuthaymiin allah u naxariistay baa mar asoo darsi akhrinaya waxaa laga wariyey inuu arkay nin yaro xoogaa uu siri darsiga lama socdo marka inuu tambiihiyo rab wuxuu ku yidhi maada kunta aquulu marna maxaan dhahayay uu socay waxaan sheegay qaala laa adri ma garanay ku yidhi. shi wuxuu ku yidhi marka limaada taxduru dars maxaa soo marka meesha inuu ogaado raba ninkan ninaan wixii la sheegi garanayn hadda meesha fadhiya. marka nin arrin cajiiba ku hadlay wuxuu yidhi liana nabiya sala allah alay slam nabiga alla qaala wuxuu yidhi hum alqowmu laa yashqaa bihim jalisuhum waa dad ayagu uusan khasaarayn kala fadhiistaa. waa xadiiska dheeraha ka hadlaya cilmiga oo ku jira ninkii aan isagoo soo daba meel iska maray iska fadhiistay. fabaka sheekh markuu ooyey marka aad buu ooyey wuxuuna yidhi aradna an nucallimahu inaan wax baraan damacnay fatacallamna minhu inaan ka baranay inaan wax baraan damacnay lagana una baray. darsiga qof kastoo fadhiya marka isku fahan ma aha isku aqoon ma aha waxaa laga yaabaa inuu macno weyn ku fadhiyo fadhigiisu oo banninkaas fiiri wuxuu soo doontay dembi dhaaf iyo khayr. darsigii shiikh ma fahmin laakiin ujeeddada uu u fadhiyey wuxuu sheegtay inuu dembi dhaaf rabay oo allah subxaanahu wa tacaala uu ku dhahay malaa'igtiisa qof darsiga fadhiyey oo iska yimid dadka duruusta akhrisanayay oo khayr ku dhex jiray kii xataa la fadhiisay oo loo dembi dhaafay. ujeeddu maxay tahay marka su-aasha ay weydiinayso ahayd ardadii yaan la garaacin baa la leeyahay isku fahanna ma aha mid baa wax baranaya garaac la'aan midna garaac buu rabaa mid garaac rabaa ma jiro kulli garaac la'aan bay rabaan laakiin waxay rabaan macallin fahma kulli maxay rabaan macallin fahma haddii nala ka helo macallin fahma kulli in sha allahu tacaala waxna waa baranayaan culum bay noqonayaan shiikhaal bay noqonayaan waa ku soo celinayaan ilmahanagu fircoon kama madcadka الله محمد هاي من كل هذا موصية هارون عليه السلام فقولا له قولا لينا هذا الجعسان كل هاي الماء دعية أمانة سوداوية والله تفرعون خبر عطيه وحنا وبرنا يان وين كل سنة وين خرجنا يان هل جارسيو هير يا معلم يروح مان درسي عند يارش يا معلم نعم درسي عند يارشو يا نواين معلم هديديسي درسي عند يارشو يا نواين بك نجي ما لك حين لها مع درس إنه الدرس يكون دياري رغبة تعال أنت حمان عضد يقول خذ يعمل لها أبرد دينتك عرر لها أن جالسين هيركاس تصور قبل العام إذا ما أنت رأيك يعني إن ذكري برو ذكري عالمان إن ذكري أذكرتي صلاة دي قرآن كي برو سود إلى المها قلبي وإلى جعله سبحانه وتعالى مركاسي halkaasay ka bilaabmi doontaa haddii kaleeto waxaa dhici doonta in oo aan dhahno waxaan dhigaynaa ay meel dheer gaari waayaan